إلهنا سبحانه وتعالى قرآن كما كو أمد سود جو وشكيني وحقل بيقول لو حر جري جنة وحقل بيقول لو عبسين جري نارتي إنك فوقادان وحل جعليشين جري لكونك إلهي سبحانه وتعالى تاسنو حيد وحيابها صحابة آد وقسام بين قرآن كن آد فافاهن جري معنا. حمدا وثناء لله فكم قد شرفنا نورا وضياء آياته قدرا ترفعنا فوق العلا قد مضينا حين سعينا وفي رحاب كتاب الله قد ارتقينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijkeeni taxanaha ahaa ee bisha Ramadaan Qur'aanka iyo samata bixinta aadanaha Al-Qur'aanu munqidhu al-bashariya. Xalaqadii kan kuwan ka horeeyay waxaanu ka soo hadalnay oo suurad ka soo bixinay sida marka Qur'aanku soo degayay uu ahaa xaalkii bulshooyinkii markaa noolaa khaasatan bulshada Carbeed. Waxaanu ku soo dhex jirnay xalaqadkeeni u dambeeyay bal dadkii Carbeed oo markaa Qur'aanku soo degayay noloshoodii soo u bedelay. تيبان سي ودنا حلقة عاو وحا إيغو مرتئة دكتور حسين مهدي أحمد. وزارة دكتورة مرحبا ودوه آديات بأمها سنتا دكتورة عاو وحا ربنا إنا نسيسو تصاليال كاميدا دادكي صحابة أها oo inta quraanku u soo degay oo kadibna noloshoodii bedelay marka bal waxaan rabnaa inaan ku hormarno inaan yeesisi tusaale saxaabi tusaale ahaan noloshiisii islaamka ka hor suu ahaa halkeed wadan. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا نقول قالوا جواب تداس مركه هرب بين آذنك إلهي سبحانه وتعالى وحوسه دجي قرآن كان وها كتابك يقدم به إلهي يقول طلق علي إنه نرشد كوبد باديو وهيانك هاي نرشاز جديد إذا لوك حيو إلا إلهي كلكم ما أنت قيامه. هذا قرآن كان وحنبار سنة هنون وحي الله سبحانه وتعالى أقول طلق علي بين آذنك وأنا كنت المام هي إنسان كإن إلهي سبحانه وتعالى وخالص يلو توحيدك إيمان ضبنا إلهي سبحانه وتعالى الرمية يوحول بو الله حقي سكيمت مركا تابا كنتي إن قرآنك ونقضه يعني بدباديها أما بدلها بلشدي ومركا ويمت بلشوينك كدن بيبا إلا إلهي لقلكم مركا وات إلهي سبحانه وتعالى أو تلمامه يسوي كلا قاضي فرقي ودحية بين آدم كمركو إيمان هلو القرآن مركو كله ليها مجدية جاهلية أي دحل سيسي إلهي سبحانه وتعالى سيدي أكل فوقينا سعدينا وعليه هي أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها والله سبحانه وتعالى وعليه هي تصالح إذن كفلا intuusan bini aadankan degin qalbigiisa iimaanka iyo quraanka wuxuu la mid yahay insaan dhintay bini aadankuna way garanayaan dhimashadu waxay tahay iyo qofku inuusan qiimo xayaata aysan u harsaneen magaca qiimahaas yani dhimashada way garanayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo mar labaad tilmaamaya wuxuu aad u caddeeyaa in insaanku uu la mid yahay xayawaanaadka oo ay bini aadanku u yaqaaniin inay yihiin kuwa aan wax maqlin ama aan wax garanin haddii ay maqlaan وات إلهي سبحانه وتعالى مرة بدن سو كشكينا دتك قلبي جوده إيمانك وكراجي وقال ده صم بكم عمي فهم لا يعقلون وقوة دجلا وقوة عن وحجرنين وإلهي سبحانه وتعالى قراتك وكقاعد هذا الصحابة دي أنتوا سن القرآن كان سود دجين وحياين كوا نلاش عس وكلا يدي مشهد الله سورة كجر إلهي سبحانه وتعالى وقولنا حريستي القرآن كان إيمانك نسي هذا مركا مثال هذا lama soo wada koobi karo yani waa saxaabadii oo dhan xayaatadoodii in laga wada sheekeeyo haddii aan hadda soo qaadano maalan mid ka mid ah saxaabadii uu qur'aanku bedelay uu u soo degay oo ilaahay subxaana watacaala ku badbaadiyey oo ka tirsanaa dadkii ilaahay subxaana watacaala iimaanku uu ku siiyey madiino oo ahayd meeshii nebiga sal slam uu u ahaa jiray saxaabigaa waxaa la oran jiray camr ibnu ljamuux hortii islaamka siduu ah haddaan suurayn maagno wuxuu ahaa nin leh ama samaystay sanam uu gacmihiisa ku qortay uu qurxistay oo uu siri
waxbuu kaa reebi karaa, waxbuu kaa dhicin karaa, waxbuu ku anfici karaa, waxbuu ku dhibi karaa macnaha. kaa uu qurxistay yuu maalin walba wuxuu sameeyaa inuu ku dadaalo qurxintiisa iyo inuu carfiyo iyo kadibna xaajaadkiisa uu weydiisto. aad buu agtiisa ugu weynaa. halka waxaa ka cad marka insaanka markuusan ilaahay subxaana watacaala ku xirneen shayga uu qiimeynayo ama qaabka wax u qiimeynayo maxay noqonayaan? inuu alwaax iyo dhagax gaarsiiyo inuu naftiisa ka qiimo badan yihiin ama uu waxbido. ninkaa marka sidaa ahaa ilaahay subxaana watacaala yani wuxuu dhaxalsiiyey inuu ilaahay subxana watacaala qalbigiisa iimaan geliyo. wuxuu ku dheeraan jiray inuu weyneeyo oo aan laga taabanin, oo macno badan uu sameeyo, oo maalin walba waqti ku bixiyo isaga iyo dhowritiisa micnaha. dadkii la noolaana way ku garanayeen inuu ninka aad ugu weyn yahay qalbigiisa sanamka uu asiga gacmihiisa ku qortay. marka wuxuu ahaa qof noloshii oo dhan kusoo koobay inuu shay uu gacmihiisa isaga ku sameeyey, shalayna aan jirin, maantana uu og yahay inuu waxba u qaban karin, laakiin mugdiga uu ku jira waxay keentay inuu waxaa qiimeeyo allihii qaadirka ahaa ee koonkan abuurtana uu ka indha la'aado. aad iyo aad runtii waa wax laga garan karo mugdiga iyo jahligu meesha uu qofka gaarsiinayo, xataa waxa caqligu keenayo inuu isagu u sameeyey inuu maaragtay uu ku mashquulo uu addoon u noqdo. bal taas garanay doctor adoo aad u mahadsan. waxaan rabnaa bal sidoo kale inaad noo suuraysid xaaladii markuu islaamka qaatay, see buu ahaa xalkiisu, see isu bedelay? marka waxyaabaha uu ninkaa aad u qiimeynayo sanamka ahaa waxaa ku hareereysnaa inay dadku yacni ay kulligood bulshada joogo dhan ay sidaasoo kale waxyaabo kale oo allah agtiisa aan qiimo ka lahayn ama bal haloogooda ku sugan ay wada qiimeyn jireen. marka waxaa jirta qiso yar oo dhex martay isaga iyo ilmihiisa, yacni laba wiil u dhalay. markii ay iyaga hortiis ilaahay subxana watacaala islaamka siiyey bay waxay bilaabeen si aabbood ay u garansiiyaan waxaan uu ku jiro inay yihiin wax liito, bay waxay yidhaahdeen bal indhihiisa ka qari oo yacni fogeeya baalkan si uu ogaado cala aqal ugu baraarugo inuu micnaha isheeg yahay wax liita oo haddee aanan waxba gelin. marka waxay kaxeeyeen, waxay qaadeen yani sanamkii isagoo hurdaya habeen, waxay ku fogeeyeen meel dadku ay waxyaabaha wasaqda iyo haraadiga yani bini aadamka ilaahay subxana watacaala uu ka soo saaray jirkiisa ay ku fogeen jireen reer Madiina ay ku dhex tuureen qashinqub ay ku dhex tuureen. marka habeenkii saas ku bariyay, subaxii markuu soo toosay uu siiyay hawsha ku mashquul oo mar labaad carfi wixii yani weynee buu aad u xanaaqay macnaha. marka isagoo aad u gariirahayo wuxuu yidhi yaa ilaahayni maantay qaatay. marka ilmihii way ka aamuseen si ay u dareensiiyaan inuusan ilaah istaahilin ama u joogin boos la qaato ama la qaado. laakiin siduu u baarahay wuu soo helay, wuu soo qaaday isagoo ka naxsan, wuu tirtiray sidoo kale. dhowr habeen bay waxay ku celinayeen inay mar walba qaadaan oo ay geeyaan bannaankii ama meel qashin quba. markii dambe waxay qoorta uga xireen ay baktiyey si ay u dareensiiyaan waxa inuusan waxba gelin. ilaa markii dambe ilaahay subxaana watacaala uu waxyar rushdigiisii ku soo celishay. uu yidhi caawa kuugu dambaysa haddaa wax iska dhicin karto, seefna waa tan yani adigaan wax ku bidaynay, seefna waa ku reebay, bal noloshaada badbaadso wax qabso. de habeenkii kalena sidoo kale wiilashii maca seeftii maca wixiiba qaaday waxay ku tuureen meeshii ay wax geen jireen oo aad u foolxumeed. maalintaabaa ilaahay subxaana watacaala nuurkiisii u bidhaamiyey, uu gartay inuusan waxba gelin. halkaas isagoo ka quustay iyo ilmihiisu markaa bilaabeen inay u sharxaan tawxiidkii oo yidhahdeen aabe haddiiba ilaahay waxaan uu kaa soo koriyey, waxaa jira allah subxaana watacaala oo ay qaadir oo adiga ku abuuray oo qiimo kuu yeelay oo noloshaas aan ku jirnana na siiyey. marka sidaas buu ilaahay ku siiyey islaamkii, sidaas bay noloshiisa mar labaad isku bedeshay. راقٍ بذكر الله قلبه ماضٍ بحب الله دربه. ما شاء الله runtii waxa weeye waa suurad waadixa baa runtii naga siisay oo runtii qofka tusin karta ama laga dheehan karo qofka bini aadanka ah haddii uusan hanuun haysan caqligiisu meeshuu gaarayo iyo xaaladda ula tegi karo. caqli kaliya inaysan waxba anfacayn, si kasta uu caqli badan yahay ama uu u dadnimo badan yahay, hanuun la'aan inuu ma aragtay runtii meel aad u hooseysa u gaarayo. sida hadda kasoo sheekaysay saxaabiga jaliilka meeshii
islaamka ka hor ay la tagtay. marka doctor aad u mahadsan, bal hadda waxaa noo suuraysaa markuu islaamka soo qaatay saacadda noo bilowday xaalkiisu si isu bedelay saxaabigaas. alxamdulilah. sidoo kale markii ilaahay subxaanahu watacaala uu islaamkaas siiyey noloshiisi aad bay isku bedeshay sida dhammaan saxaabada oo dhan ay ahaan jireen. waxaa bilaabatay inuu nolosha waxa uu ka qiimeynayo ay noqoto waxa uu ilaahay jecel yahay subxaanahu watacaala. ilaahayna subxaanahu watacaala qur-aanka markuu ummadda uu ku soo dejiyo uu sheekeynay waxaa qalbigoodu lagu xiri jiray jannada, waxaa qalbigoodu lagu cabsin jiray naarta inay ka fogaadaan, waxaa la jeclaysiin jiray la kulanka ilaahay subxaanahu watacaala. taasuna waxay ahayd waxyaabaha ay saxaabadu aad ugu saamoobeen, qur-aankuna uu aad u faahfaahin jiray macnaha. marka haddii aan soo qaadano qisastiisii, inkastoo uu mar aad ugu dhow islaamkiisiiba u geeriyooday bacda sanatayni oo 3 min islaamihi u geeriyooday, wuxuuna ku geeriyooday dagaal ka mid a dagaaladii nebiga u galay sallallahu alayhi wasallam oo qaswatu uxud ahaa, oo dagaalkii labaad u galay ahaa. maalintii dagaalkaa loo baxayey iyo waqtigii laisku diyaarinayay baa waxaa jirtay iyadana qiso kaloo yar oo dhex martay asigii iyo wiilashiisa. waxay siiradu sheegtaa iyo kutubta taariikhda inuu saxaabigaas ahaa nin curyaana ama jiis ah sida dadku ay u yaqaanaan. marka dadku waxay islaahayeen ninkan waa nin la cafiyey oo aysan waajibkii jihaadka iyo bixitaankiisi uusan saarneen. marka waxay yani wiilashiisa isku dayeen aabe innagaa kaa xigsaneen dagaalka iyo nebiga sal slam raacitaankiisa iyo u bixitaanka gaalada ah, adiga iska naso, yani iska joog maadaama ilaahi subxana watacaala cudurdaarkaas uu ku siiyey. laakiin isagoo aad uga xun rajaynayeen in ilaahi subxaana watacaala sharafta jihaadkaas iyo geerida iyo shahaadada laga helay halkaas iyo alla la kulankiisa yani aad u rajaynaya, yuu nebiga sal ly slam wuxuu ugu tegey inuu uga ishtakoodo ilmihiisii uu yidhahdo yaa rasuul allah waxay iga reebi rabaan jihaadkii in adig ku raaco, anigana waxaan ilaahay ka rajaynayaa in aan lugtaydan jiiska ah aan jannadii kula dhex kutubo. waa tilmaam caddaynaysa yani sida waxa uu adduunka ka qiimeyn jiray uu isku bedelay macnaha. wuxuu noqday qof alla ku xiran, la kulankiisa jecel, raadinahaya meel walba oo alla raali ahaanshihiisa laga sheego. marka sidaas buu ilaahay subxaana watacaala uu ku oofsaday, uu ku tegey jihaadkii, sidaas buuna ku galay maalintii uxud ilaa ilaahay subxaana watacaala uu qoray inuu ka mid noqdo dhowrkii saxaabi ilaa 70 gaaray ee ku geeriyooday dagaalkii uxud ku geeriyooday. marka halkaas baa ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku siiyey sharafkii jihaadka. halkaasaan ilaahay subxaana watacaala siduu yani aan filayno naxsabuhu uu uga raali noqday yani noloshiisa inay kusoo gabagabooday. haddaba daawadayaal, halkaa waxaynu ka arkaynaa runtii qofka markii islaamku uu noloshiisa uu galo runtii siday isku bedelayso. sida hadda saxaabiga laga soo sheekeeyey xaaladiisa markaad fiirisid, saxaabigaas markii hore runtii wax aan anfacayn adduunya aakhira midna toona, oo runtii naftiisa u horeeyey oo saas u caabudayey waxaan waxba anfacayn, inuu markuu islaamka qaatay qur'aanku ilaahay si u bedelay ilaa uu gaaray heer uu allihii abuuray subxaanahu watacaala uu naftiisii uu diyaar uma noqdo inuu u huro oo saasna ku dhintay. marka aslan islaamku waxa weeye waa dhaqan ee runtii ma aha wax oo afka laga sheegto, waa dhaqan ka soo muuqanaya nolosha qofkana laga rabo inuu markuu islaam baan ahay uu yiraahdo ay ka soo muuqato xayaatadiisa iyo noloshiisa. marka dadkana waxaan rabnaa inaan ugu yeeraynaa runtii inay islaamkaas ay ka muuqdo nolosha oo ku dhaqmaan oo ilaahay kitaabkiisa ay maaragtay ka dhigtaan marjic. intaynu xalaqada ma ku kulmi doono daawadayaal, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. حين سعينا وفي رحاب كتاب الله قد ارتقينا